dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa qaaday tallaabo muhiim ah oo ku aadan xoojinta awoodda difaaca qaranka kadib markii la xaqiijiyay in dowladda Pakistan ay ansixisay heshiis ku kacaya qiyaastii 900 oo milyan oo doolarka Mareykanka ah kaas oo Soomaaliya ay ku iibsanayso diyaaradaha dagaalka ee casriga ah ee nooca JF-17 heshiiskan ayaa lagu tilmaamay mid taariikhi ah maadaama uu qayb ka yahay dadaalada ballaaran ee lagu dhisayo ciidanka cirka ee Soomaaliya kaas oo muddo dheer aan helin qalab casri ah tan iyo burburkii dowladda dhexe dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe waday qorshayaal lagu casriyeynayo ciidanka qalabka sida iyadoo diiradda la saarayo difaaca hawada tababarka ciidamada iyo helidda tiknoolajiyad military oo horumarsan diyaaradaha dagaal ee JF-17 oo ay si wada jir ah u soo saaraan Pakistan iyo Shiinaha ayaa caan ku ah isu dheelitirka u dhaxeeya awoodda dagaal iyo qarashka waxay awood u leeyihiin inay fuliyaan howlgallo kala duwan oo ay ku jiraan difaaca hawada iyo weerarada dhulka taas oo ka dhigaysa kuwa ku habboon dalalka doonaya inay degdeg u horumariyaan awooddooda military ila xog ogaal ah ayaa sheegaya in heshiiskan uu sidoo kale uu ka koobnaan doono tababar duuliyaasha Soomaaliyeed dayactirka iyo qalabaynta kaabayaasha muhiimka ah sida garoomada diyaaradaha militariga ah iyo taageero farsamo oo joogto ah hubinta in diyaaradaha cusub si hufan loogu shaqeyn karo marka la keeno dalka Soomaaliya dhanka kale wararka ka imaanaya gobolka ayaa tilmaamaya in dalalka Suudaan iyo Liibiya ay hakad geliyeen qorshayaal ay ku doonayeen isla nooca diyaaradaha JF-17 taas oo loo sababeeyay duruufaha siyaasadeed iyo amni ee ka jira dalalkaasi tani waxay fursad u siinaysaa Soomaaliya inay sii xoojiso xiriirkeeda difaac iyo iskaashi ee ay la leedahay Pakistan si kastaba ha ahaatee khubarada dhanka amniga ayaa tilmaamaya in hirgelinta heshiiskan ay u baahnaan doonto qorshe cad oo ku saabsan maalgelinta maareynta qarashaadka iyo dhismaha awood farsamo oo gudaha dalka ah waxaa sidoo kale muhiim ah in la hubiyo in heshiiskani uu la jaan qaadayo baahiyaha dhabta ah ee amniga qaranka iyo istiraatiijiyadda difaac ee muddada dheer haddii si guul ah loo fuliyo heshiiskan wuxuu Soomaaliya siin karaa fursad ay ku yeelato awood hawada oo casri ah taas oo sare u qaadi karta amniga guud ilaalinta xuduudaha iyo awood ay dalka uga jawaabi karto khataraha gudaha iyo dibadda ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya wali si rasmi ah uma aysan bixin faahfaahin buuxda oo ku saabsan jadwalka fulinta heshiiskan balse waxaa la filayaa in toddobaadyada soo socda la shaaciyo macluumaad dheeraad ah